السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابتا كحرن دار الخير ميديا iyo Naciim Studio. barnaamijkeena qisooyinka iyo ku cibro qaadashada. Qisada koowaad waxay ku saabsan tahay nin dhakhtar oo xikmad badan, isagoo oo aad u degdegsan ayuu soo galay isbitaalka. Inta uu markiiba labiska qaliinka qaatay ayuu abaaray qolka qaliinada isbitaalka si uu isku dayo inuu badbaadiyo bukaan lagu soo qaydiyay. Markuu uu maray kadinka qolka qaliinka ayaa waxa ku soo kacay nin oday ah oo aabba ah bukaanka uu ordayo inuu qalo. Wajiga odayga waxa ka muuqatay caro xad dhaaf ah. Markii dhakhtarka isha uu ku dhuftay wuxuu u bilaabay qaylo iyo canaan aad u qalafsan uu u jeedinayo dhakhtarka. Isaga oo ku siganaya inuu qabto kuleetiga ayaa inta uu hor istaagay waxa uu ku yiri, "Doctor, maxaad waqtiga inta la ku habsantay? Miyaanad ogeyn in nolosha inankayda halis ku jirto? Miyaanad dareemin mas'uuliyadnimo? Sidee aad u habsaami kartaa adiga oo dareensan in dad adiga nolol ka rajeynaya ay ku jiifaan?" Inta dhakhtarka wuxuu ahaa qof naxariis badan. Asagoo dhoola cadeynaya ayuu odaygii oo uu sugaya inta uu hadalkiisa dhameysanayo oo ku yiri, "Aad ayaan oo xumahay walaal in aan dib u dhaca isbitaalka maanan joogin markii warka inankaaga la isoo sheegana, laakiin si ugu dhaqso badan waan ku imi. Waxaan ka codsanayaa in aad isdejiso anigana ay banayso jidka si aan shaqadeyda u qabsado. Waxa aad u kalsoontaa in inankaagu uu ku jiro gacmo aamin ah. Ilaahayna qadarka uu iska leeyahay." Odaygii kuma u degin hadaladii dhakhtarka waxa uu iska sii watay canaantii iyo qayladii, iyada oo erayada uu leeyahay ay ka mid ahaayeen, "Waa maxay sida qabow ee aad ila hadlaysa? Sidee aad ii dhahdaa isdeji? Haddii xaaladda inankaagu uu halis ku jiri lahaa sidaa ma u hadli lahayd?" Laakiin dhakhtarkii hadaladan dambe ma uusan sugin ee si dhaqso ah ayuu markii iidaheed iskaga weydaariyay odaygii oo uu ku galay qolka qaliinka si uu waajibkiisa u guto. Aabihii oo aad u caraysan ayaa inta uu garbaha lulay kasii daba tuuray dhowr kelmadood oo ay ka mid ahaayeen, "Waanadu fududa marka aad la hadlayso murugada qof aydan waxba isu ahayn." Dhakhtarkii saacado kadib ayuu ka soo baxay qaliinka isagoo oo aad u degdegsan. Odaygii oo halkii jawaabtii ku sugaya ayuu ku yiri, "Aabbo macaan, ku bishaarayso qaliinkii waan ku guuleysanay. Ilaahay ayaa mahad leh. Wiilkaagina waa uu fiican yahay." Kadib dhaqso ayuu ku degdegay isagoo oo ku sii leh wixii faahfaahin ah. Gabadha kalkaalisada ayaa ku sii sharaxi doonta. Odaygii oo ka yaaban ninkan dhakhtarka ah ayaa gabadhii weydiiyay in ay wax uga sheegto xaaladda dhakhtarkan oo u arkayay nin isla weyn. Gabadhii intii ay foorartay iyada oo ilmo indhaheeda ku taagan tahay ayay tiri, "Ninkan digtoorka ah ee kula hadlayay inankiisa ayaa shalay ku dhintay shil gaari. Isaga oo ku jira hawshii tacsida iyo aaska ayaa lagala hadlay isbitaalka oo loo sheegay in ay jirto xaalad degdeg ah oo ay tahay in uu isku dayo inuu wiilkan ku badbaadiyo. Waayo dhakhtarka qaliinka midka ugu fiican waa asaga keli ee isbitaalka." Sida ayuu ku yimi. Iminkana waxa uu ku sii ordaya si uu uga qaado asaga. Odaygii oo naxdin afka kala hayo ayaa inta ay kor u egtay iyada oo ilmeynaysa waxa ay hadalkii ugu soo xirtay, "Inta uu murugadii geerida inankiisa dhan iska dhigay ayuu u yimi inuu badbaadiyo inankaaga. Ilaahay u naxariiso naf walbo oo murugteeda qarsanaysa si ay dadka wax ugu qabtaan." Ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nala saaxiib. Videogan haddaa ka heshay like garee. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.